بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون saaka waxaan maqlay geeri aad iyo aad naxdin u leh waa la wada dhimanayaa waana la kala horeynayaa laakiin ciise cali maxamed ciise dheere wuxuu ahaa Soomaali wadani ah aqoon-yahana dalkan wax badan u soo qabtay intaan xusuusnahay 73 ilaa 77 waxaanu isku naqiinay ka wada shaqeynay xaruntii dhexe ururkii dhalinyarada kacaanka Soomaaliyeed oo halkaa isagu mas'uuliyad ka hayay barbaarinta caruurtii dhalinyaradii loo bixiyay dhalinta kacaanka barbaarintoodii kadib isla markaa wuxuu ahaa macallin waxbarashada ka shaqeeya dugsiyada iyo barbaarinta caruurtu waday kadib waxa laga dhigay safiir dalkii Ciraaq ayuu safiir ka noqday wuxuu ahaa nin aqoon-yahana naxariis badan oo aan ku ogaanay caruurta uu barbaarin jiray sida uu la dhaqmi jiray wuxuu ahaa siyaasi diblomaasi ah oo wax badan garanaya dalka Soomaaliyana laga soo bilaabo waqtigaas 72 ilaa uu ka geeriyoonayo uu shaqeynayay hadda waxaan filayaa wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu ka mid ahaa taliyayaasha wasiirka ama guud ahaanba wasaaradda arrimaha dibadda ilaahay ha u naxariisto wax kaloon sheegi karnaa ma jirto wax kaloon qaban karnaana ma jirto waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ehelkii dadkii uu ka tegay iyo dalka Soomaaliyeedba guud ahaan iyo dawladdaba samariye iimaan Allah ka siiyo isagana jannadii firdawsa geeyo